gabar baa soo qorad xaq laga maxishoodo ceebna maahan way xaq in la isweydiyo qofku ku cilmi korsanayo cilmi uu ku siyaasanayo wixii aan ilaahay raalli ka ahayn ayaa laga xishoodaa waxay leedahay gabadhaasi waxaan ahay gabar yar oo aan weli guursan mararka gabal waxaan dareemaa inaan u baahanahay shahwo ama nin u baahanahay marka haddaan marmariyo gacantayda farjiga waxaan dareemaa inaan ku macaansanahayo oo gacantaas aan mataqaana aan marinahayo ma qof dambaabay baan ahay qubays ma igu waajibahaya haddaan wax biyaha isaga imaanin wax zina la mid ah miyaan sameeyey marka sheekh hana la iisoo duceeyo oo sheekha ducana waa ka codsanaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxa weeye horta waa sidaasuu sheikhu u sheegay oo qofku wixii su-aalaho sawaaba siday tahay baa in qofku usoo weydiisto loogagana jawaabo ay tahay waatay gabaru ku tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yastaxyi min alxaq fahal cala almar'ati quslun ida xtalam arrin marka dumarkii waktigaa joogo saxaabiyaadka ay aada ula yaabeen bay ahay xaqa ilaahay waa kii caddeeye nabi allow gabadhu hadday isku junubto qoys ma ku waajibahayaa saasi u weydiisa nacam idaa ra'at ilmaa baa nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam haa hadday biyihii aragto oo biyo ka yimaadeen qubaysku waa ku waajibahaya markaasaa gabdhihii saxaabooyinka ahaa arrintii daba galeen oo caaisha matala gabadhii nabiga la joogta calayhi salaatu wasalaam waxay tiri naaguhu maya isku junubaan nabigu wuxuu yidhi doqon yahay bima yashbahu lwaladu maxaa ilmuhu u ekaadaan haddaan naagtu biyo lahayn oo aanay isku junubaynin oo biyuhu u shabahaan ilmuhu u shabahayaan haweenku way leeyihiin biyo laakiin waa markii ay run ahaan biyuhu u yimaadaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aragtidu daati ma ahan marka uu leeyahay nacam idaa ra'at ilmaa waa xaqiiqahan biyihiina ka yimaadeen gabadhan hadda sida ay u sheegtay waxa weeye waxay tiri masal bahalkan hablaha iyo ragga labadaba waxaa la yidhaahdaa waxaa laga gooyaa waxa la yidhaahdo khitaanka cad baa laga gooyaa ragga cad baa laga gooyaayoo waa xashafada hilibka saaran haweenkana cad baa laga gooyaayoo sharciga islaamku ka goynhayaayoo waa hilibka taagan ee la yidhaahdo badarka ee la yidhaahdo dhoorka digaaga uu eg yahay yaa ayagana in la gooye ay tahay ayadoon weliba la badinayn baa la yidhaha hadda meelo badan baa waxaad maqlaysaa in la gudaba ma ahan maya waa waajib in la gudo gabadha laakiin waxa aan bannaanayn waa gudninka fircooniga ah kan in gabadha laga gooya cadkaasa waa waajib waxaa la yidhahdaa waxaad arkaysa hadda nimo weylo culimo ahoo leh culumaa nahay lahoo odhanaya waa sunno haddaad rabto waad iska dayn kartaa waxaad garanaysaa qofkaas inuusan qawaaciddu shareecaba wax ka aqoon qofka jirkiisa waxaa loo geyn karaa oo keliya wax daruuri ah oo waajib oo lagama maarmaana wax laga maarmi karinin baa qofka jirkiisa dhiig looga keeni karaa wax kaloo sharci islaam dhiig lagaaga keeni karaa ma jiro waa inuu yahay wixii wax lagama maarmaana marka cad hiliba oo aad leedahay in la jaro oo loo jaro wax ama la samayn karo ama la iska dayn karo maya waxaasan qofkaasu garanayn qawaaciddu shareeco waxa keena in qofka la yidhaahda cadkiisa la gooyo waa shay waajiba oo daruuri ah oo lagama maarmaana marka waxay gabadhu leedahay cadkaas la gooyo ayaan fartayda ku salaaxaa macaan baan dareemaa arrintaas wax iga yimid oo biyaana anigu ma hubo qubays ma igu waajibahayaa ma bannaan yahayoo ma zina mase waa wax bannaan baa mase waa zino arrintu duuduub ahaan waa sidaas su-aasha ay gabadhu u keenatay waxa weeye kow horta isticmaalka farta rag iyo haween midna looma ogola wax bannaan ma ah ninkuna inuu gacan shahwo iskaga keeno ma bannaana gabadhuna inay gacan shahwo iskaga keento ma bannaana isticmaalka gacantu waa xaaraam sharciga islaamka wax la ogol yahay maaha wax bannaan ma aha waa xaaraam waxaa soo haray jaanibka marka zinada ku dhow yahay ama la gaarsiiyaa baa la yidhaahdaa oo xitaa waxaa la yidhahdaa qofka haddii inuu zino ku dhaco iyo inuu biyaha saa iskaga keenaa ay u sinanto ma iska keeni karaa taasaa xitaa khilaaf ku jira jumhuurulislaam oo in badan waxay leeyihiin maya xitaa marka in aad gacanta isticmaasho haddaad nin tahay iyo haddaad gabar tahay midnaba
ma bannaana horta waa xaaraam waxaa soo haray qubays ma igu waajibahayaaba haddii biyo kaa yimaadeen qubays way kugu waajibin haddaan biyo kaa imaanna maya waxaa meesha ku qoran aniga biyo iga yimidna ma arko haa waxa weeye haweenka biyahoodu bannaankana waa u soo baxaan mar bannaankana mar uma soo baxaan laakiin qofka in biyuhu ka yimaadaan sifo kalaad ku garanaysaa haddii aad macaansato waktigaas laba waxyaabood haddaad dareento macaansi in wax kaa soo baxayaan aad macaansatay iyo shahwa jabid markii waxaas kabacdigeed ay shahwadii kaa jabayso labadaas haddaad dareento biyihii waa kaa yimaadeen qubayskuna waa kugu waajibahaya laakiin haddaadan macaansi wax kaa soo baxahayaan oo aad u jeelayso sida aad taqaanid oo dee shahwada markay soo baxayso qof kastaa u dareemo haddii aadan dareemin markaas kabacdina aan markaas shahwadii iyo kacsigii iyo wixii kugu taagnaa kaa jabin marka waxa weeye inaan biyo kaa imaan ayay noqonaysaa qubays markaa kugu waajibi mahayo farta haddaad xitaa hadda adigu bahalkaas la jaro oo haweenka laga jaraan dushiisa ku salaaxaabaa tiriye fartoo dhan haddii haweentu geliso farjigeeda ama nin qof kale geliyo haddaan biyo ka imaanin fartii la geliyey qubays ma waajibinayso qubayska waxa waajibiya waa dakarka raggaa qubayska waajibiya laakiin far haddii la geliyo farjiga haweenka farteeda ha ahaato far qof kale ha ahaato waxba qubays waajibi mahayo waxa qubays waajibahaya hadday biyo yimaadaan oo fartii la geliyey ay biyo keento yaa qubaysku waajibahaya haddii sida hadda adigu aad u tiri aad bahalkaas markaad ku dul salaaxday baan macaansanaya ay tahay saas biyuhu kaaga yimaadaanna qubaysku waa kugu waajibin biyihiinay kaa yimaadeenna maxaad ku garan tilmaanta aan kuu sheegay oo inaad macaansanaysay ko macaansigii kabacdina ay shahwadii kaa jabto markaas waxa weeye biyihii waa kaa yimaadeen biyihii oo bannaanka u soo baxay inaad aragtaa shardi ma aha haddii laakiin weli shahwadaadii sidii u taagan tahay wax macaansi gaaraho aad dareemaysana aysan jirin tii kacsiga guud ahayd mooye taas markaa dhib ma laha oo qubays kugu waajibi mahayo fartaada haddaad xitaa farjiga geliso qubays kaaga waajibi maayo laakiin biyahaas iyo baa qubays kaaga waajibaya ilaahay waxaan weydiisanaynaa nin khayr qaba allaha ku siiyo hadda adiga dhibka ku hayaa siday u muuqato waxa weeye waa shahwadaa kugu badan ninna ma qabtid markaas inaad xaaraam ku dhacdana ilaahay ha kaa ilaaliyo nin khayr qabo oo ku dhaqa oo adduunkana cafiif kugu sameeyo oo cifadaada ilaaliyo oo inaad xaaraam ku dhacda kaa ilaaliya dhaqanna aad ka heshana ilaahay ha ku siiyo wixii hadda aad samaysay oo khaladana dembigaagii allah dhaafo inta dambena allaha kaa manciyo shaydaanka waxa uu ku tusinayo ilaahay ha kaa manciyo wallahu aclam bisawaab